بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله. اللهم صل على سيدنا محمد وسلامته النمان ومد الصوماليات مالك استوى الدنيا كتشوكتان صوماليي قول باسوه يتي صوماليي قول باسوه يتي إن شاء الله ومد الصوماليات وارفرحات لي وأيكون فرحان إن شاء الله بإذن الله الكريم. bukaan socodka iyo dhayarqabayaashuna ka nixi doonaan eegay barnaamijka noo sheergaraya soo dhawow cabdisalaam gentleman soo dhawow guddoomiye inoo sheergaraya barnaamijka meel kastoo dunida ka joogtaan ummadda Soomaaliyeed waxaan ilaahay idinka baryayaa caafimaad iyo barwaaqo iyo bashbash aad ku joogtaan inta xanuunsan ilaahay caafiyo intii dhibatay Allah u naxariisto ummadda Soomaaliyeedna waa walaalo Soomaaliya barnaamijka noo sheergaraya caawa waxaan idin hayaa guul u soo hoyatay ummadda Soomaaliyeed waxa fashilmay dhagarqabayaashii dib u socodkii iyo nimankii daalimiinta ahaa ee ku hanjabayay maalmahanba in magaalada Muqdisho qaraxyo ka dhici doonaan in hub la soo galiyay in hub qaar lagu aasay sidii dawladdeena iyo shacabkeena iyo Muqdisho iyo caasimadda Soomaaliyaba loo barakicin lahaa raggii ku hanjabayay ee waxa weeye TV-yada la fadhiyay ee bukaan socodkii iyo dib u socodkii dhagarqabayaashii iyo wakiiladii xabashida oo fashilmay oo gacan bira lagu soo dhigay ayaan idin hayaa caawa eegay barnaamijka noo sheergaraya insha Allah billahi karim soo gaara waa war farxad leh insha Allah billahi karim waan idin dadajinaya maxamed biixi soo gaara barnaamijka noo sheergaraya hadii ilaahay idmo waan ku salaamay guddoomiye Jamiilo Jaamac Jibriil midnimo jeeyay waan ku salaamay guddoomiye soo dhawaada barnaamijka noo sheergaraya eegay Soomaali Maxamed ay barnaamijka noo sheergaray halka ay u dhimanaysay boogtu ka quruntahay weynay ummadda Soomaaliyeed ogaataa weynaynu ogaanaa cadowgeena weynaynu ogaanaa qofka rixinka inoo ah weynaynu ogaanaa nabadiidka iyo qaran dumiska iyo kuwa daalimiinta Ilaahay ka furtay dalkan iyo dadkan u soo tashaday weynaynu farta ku fiirnaa haddaanu nahay midnimo qaran waxaan u taaganahay ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed baanu ka midnahay eegay barnaamijka noo sheergaraya hadii aad ogeydeen qabqable iyo nin daalin ah oo waxa weeye social media soo fariisto ummadda Soomaaliyeed kala dila anagu dadkaan isu keenayna shacabka Soomaaliyeed baan walaalanayna walaalnimada iyo Soomaalinimadu waxay tahay baanu sheegaynaa islaamnimadu waxay tahay baanu sheegaynaa waxaan u taaganahay shacabka Soomaaliyeed mana doonayno hooyo Soomaaliyeed iyo aabba Soomaaliyeed inay dib u goblamaan mana rabno ubadka Soomaaliyeed inay agoon iyo rajo ku soo koraan waxaanu ka dagaalamaynaa wixii shalay nagu dhacay inay dib nagu dhacaan eegay barnaamijka inoo sheergaraya bukaan socodka iyo dabadhilifka iyo qaran dumiska iyo daalimiinta iyo wakiilada xabashida down baan leenahay Soomaalinimadu waa muqaddas dad islaam waana diinteena macaan ee suubasidena fartabaanu yeelaynaa ummad Soomaaliyeed oo la kala googoynaya iyo 4.5 iyo federalism iyo sheeka niica iyo qoloba inay cid meel ku xirato waxa waanu ka soo gudubnay دربيجا حبسيا ولكسو بودني وحنو سو بودني قرانيمو دبدانو تاغناي شعبك الصومالي waa walaalo gacmaysaystaan Soomaaliya hanolaato meesha laga leeyay Soomaali way nooshahay Soomaali ha israacdo waa ka mudan Soomaalina israacdana waa muqaddas cid naga hor istaagi kartana Soomaali israacdo inaanu dawlad noqono inaanu jiritaankeega iyo calankeyga dib u soo noqdo adduunka inaanu subcad ku yeelano qaxooti dambe inaana la oran inaan gabar dambe dayacmin inaan wiil dambe saxaraha iyo badda ku dhiman cid naga hor istaagi kartaa ma jirto cid kasto isku dayda qarankeyga dalkeyga iyo dadkeyga inay dhibaatayso oo qabyaalad noo kala waranto wallahi waanu iska qabanayna shacabka Soomaaliyeed way soo jeedaan qaaradaha caalamka oo dhan bay ku wada noolyihiin waxbay barteen ummadda Soomaaliyeed maanta luuqado badan bay ku hadlaan falsafado badan bay yaqaanin aqoon-yahannada ka soo baxay dad wax garad ah oo aqli badan kuwii agta lagu hayay ee professorada iyo aqoonyadaha oo hadli jirin maanta way hadlayaan shacabkooda inuu hadlayaan inoo sheergaray eegay Suleymaan Cabdiraxmaan akaal aad baan ku salaamaya warkana waa insiinayaa eegay barnaamijka noo sheergaraya hadda wuxuu yiri hadaan la rogrogin rag baan helin xaaladda Soomaaliya hadaan la rogrogin rag baan helin raggeedii waa u soo baxay dhalinyarada Soomaaliyeed waad ogtiin barnaamijka meeshaan hadda ka hadlayeen midnimo qaran waxa ku qoran KDS waa kacdoonka dhalinyarada Soomaaliyeed ee midnimo qaran waxaan ku hadlaynaa afka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan nahay dhalinyaro waxaan u dagaalamaynaa jiritaanka iyo mustaqbalka dhalinyarada Soomaaliyeed haddaad bari ogeydeen inaad ugu xamaalataan haddaad bari ogeydeen inaanu xabad iskaga kindigno haddaad bari ogeydeen inaad milan ugu qarxsaan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta way soo jeedaan
waxay rabaan walaalnimo ehelnimo iyo saaxiibnimo iyo soomaalinimo iyo islaamnimo baa deeqda dhalinta Soomaaliyeed wiil iyo gabarba way tashadeen waxayna ku tashadeen say dalkooda iyo dadkooda ay u meel marin lahaayeen eegay barnaamijkan galaya bismillaahir rahmaanir rahiim fashilkii ugu weynaa iyo ceebtii ugu weyneed baa ku dhacday dib socod mahad salaad iyo xidig iyo Cumar Cabdirashiid iyo nimankii dhagar qabayaasha ahaa ee waliba laanta Muqdisho ee koonfur qaabilsanaaye xidig iyo mahad salaad ugu horeeyeen fashil baa ku dhacay way fashilmeen ciidan bay meel dhigeen oo ku ururiyeen waxayna doonayeen magaalada Muqdisho inay khalkhal ku galiyaan civil war iyo sheekadii generaalada iyo korneylada iyo nimankii askarta ahaa ee haddeer gawaabsiga noqday sheekadoodii ayay rabeen inay Muqdisho dhexdeeda ka sameeyaan waa sir culus way ku fashilmeen kulliyada jaalasiyaad dabarkeeda meel u dhow ayaa laga soo qabtay ciidankaas waxaan horta u hambalyeeyaa ciidanka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho jooga ee ciidanka nisa iyo ciidanka nabad sugidda ee dhalinyarada dalkooda iyo dadkooda u dagaalamaya ee waxa weeye ku shaqeynaya marxaladda adag u dhabar adeegay dhibaatadii ummadda Soomaaliyeed soo martay dawladnimadan raadinaya aad baan ugu hambalyeeyaa waa dhalinyaro Soomaaliyeed waa wada gadmadow waa rag dhalinyaro ah oo naftooda u biimeeyay dalkooda iyo dadkooda sidoo nabad u heli lahaa ummadda Soomaaliyeed ay dadkiina qurbaha jooga waxa weeye darbiye cilaabad fadhidaan bariskiin iyo talaagada ay buuxda cayd baad meelaha ka qaataan ama meel yar baad ka shaqaysataan ubadkiin iyo reerihiinu nabad bay idin joogaan waxa ku dhimanaya halkaas ay ku dagaalamaya waa dhalinyaro idinkoo kala ah waa inaad taageertaan waa inaad support gareysaan ciidanka Soomaaliyeed meel kastaba ha joogeen nin kastoo ciidan ah oo dalkiisa iyo dadkiisa u dhimanaya waa in la support gareeyaa waa in la garab istaagaa waa in la taageeraa ciidanka Muqdisho ee maanta soo qabtay nimanka daalimiinta ah ee rabay in ay Muqdisho xabad ka bilaabaan oo Muqdisho qarax ka bilaabaan aad baan ugu hambalyeeynaa ciidanka Soomaaliyeed aad baan ugu hambalyeeynaa haddaan nahay midnimo qaran garabkiina aanu nahay waanu idinla jirnaa nin kasta oo dalkeena iyo dadkeena doonaya inay ummadeenu dhimato ummadeenu xasuuqdo ummadeenu uu laayo dhiigooda daadiyo ka hortaga ilaahay baana idinku gargaaraya dad islaama baa tihiin mujaahidiin baa tihiin mujaahidiinta qaar baa iska samaysta qaraxiyo mujaahid baan ahay mujaahidnimadu waa ninka dalkiisa iyo dadkiisa u dhinta waa ninka ummadiisa xabada ku soo socoto hooyada Soomaaliyeed ubadka shafka u dhigta ninka cadowga la dagaalama ninkaas wuxuu yahay waxa weeye mujaahid ah ciidanka Soomaaliyeed soo qabtay dhagar qabayaasha waa niman kale oo dhalinyaro ah oo la waalay oo la majara habaabiyay oo mission loo dhigay oo mahad salaad iyo xidig iyo nimanka dib socodka ay ku soo abaabuleen kuuliyada jaalisiyaad dhabarkeeda guryaha halkaas laga soo qabtay waa laba gaari waa dadka assassinationka iyo dhibaatada ku sameyn jiray magaalada Muqdisho hubkii aasna waa la soo saaray qaar bay ugu soo hanjabi jiray hub baa la aasay boodariyow ciidan baa soo galaya qaraxyada hadda la bilaabaya shaydaan wusuusay iyo ciidankiisa waxa social media la wareegi jiray habeen iyo maalin midnimo qaran soo garaacaya oo leey waxbaanu qarxinaynaa warbalninka aniga igu hanjabaya Muqdisho la qarxinaya oo ehelkiisa iyo ilmaabtidii iyo hooyadii reerkoodii walaalkoodii ilmaadoortood degan yihiin bal aqliga ilaahay baan Soomaaliya idinkan idin diibay anu waxaan ka yimid magaalada Boosaaso waxaan ka yimid magaalada Lascaanood labada magaalo baan ku koray oo waxa weeye nolosheeda intii ugu badneed ku soo qaatay waa gobolka Bari iyo gobolka Sool ninka Muqdisho reerkiisu degan yahay aniga igu soo hanjabaya Muqdisho qarxinaya oo Muqdisho waxa weeye naaski iyo meeshu naas ka soo shaqay iyo meeshu aabii joogay iyo meeshu abtiyadii iyo adeeradii le waan qarxinaya ee midnimo qaran ugu hanjaanay intuu soo garaaco reporter iyo xamar taas ka dhici doonto fashil baa ku dhacay anigu waxaan ahay Muqdisho waxaan ahay Beledweyne Hargeysa iyo Burco aan ahay Kismaayo iyo Boosaaso aan ahay Garowe iyo Ceeriga baan ahay dhammaan geeyga Soomaaliyeed oo dhammaan waxaan ahay Soomaali dhalay iyo dhashi waxaan ahay wadani dhalay way damqaysaa beled xaawo islaanta gaarigu ku jiiro iyo Kismaayo kan dhagaxa lagu dhufto ma ogalay qof Soomaaliya inta in la ginay gaadho waxaan doonayaa dadka inay ugu qurux bataan oo ugu sharaf badan yihiin uguna dawladnimo fiican yihiin uguna niyad fiican yihiin ayaan anigu doonayaa miyaa miskiin yaa daciif magaan bukaan socda oo liitabatay fashil baa ku dhacay bukaan socodkii u soo dhiibaan dhagar qabayaashu social media mariya bay yiraahdaan laakiin social media anaga taagan oo midnimo qarana waxa taagan ummadda Soomaaliyeed oo midnimo qarana war midnimo qaran waa shakhsi kasta oo Soomaaliyeed oo fiican baa midnimo qarana anaga taagan social media kadaab YouTube iyo dhagar qaba oo dhan waa la soo afjaraya down qaran dumis oo dhan waa down eegay inoo sheer garay barnaamij fashilkii ku dhacay mahad salaad iyo xidig iyo dib u socod
ayaan idinka warramaya ciidanka Soomaaliyeed qaranka Soomaaliyeed dhalinyarada Soomaaliyeed ee ciidanka hambaliyaan idin leenahay haddaanu nahay midnimo qaran aad baanu idin taageersanahay ilaahay ha idin guuleeyo waxa weeye ubadkiisa arka insha Allah Soomaaliya israacdina waad arki doontaan marxaladaad ku shaqeynaysaan baanu dareemeynaa dhibaatadaanu dareemeynaa qabyaalada iyo wakiilada xabashidaanu dareemeynaa waxa idin haysto dhan baanu dareemeynaa insha Allah biidnillaahi kariim dullahow adduunyada buu yiri abwaankii badan way dambaysaa maalmihii adkaa mar hore tageen mar hore maalmihii adkaa civil war iyo dhibaato iyo qax iyo rafaad weyna soo kareen haddaynu nahay dhalinyaradu wayna istaagaan dhalinyarada Soomaaliyeed ayaan la hadlayaa rag iyo dumarba waa inaad istaagtaan waa inaad dalkiina iyo dadkiina isu taagtaan SYL dhalinyaro ahay koob iyo 10 nin oo dhalinyaro ah ahay laakiin dad fiican bay haysteen marxaladan maanta inuu ku shaqeynayno SYL waynu ka fiicanna SYL waxay haysteen hooyo fiican oo ubad qurux badan oo maskaxle soo saaraysa oo dhalaysa oo korinaysa aaba fiican oo caruurta ilaabta baraya oo Soomaalinimada baraya oo wadaniyada baraya ayay haysteen anagu maanta waxaanu haysanaa wada bukaan socod iyo dhagar qabayaal maalin walba nin baa ku soo garaacaya ama professor ama engineer oo kule midnimo qaran ay waanu taagnaa laakiin nin reerkooda maalintaad ka hadashid maalintaas aad isnacaysan maalinta aad nin reerkooda aad wax ka sheegtid ayaa mid ku taageersanaa ku nacaya Allah u naxariistay wuxuu yiri mar walbana waan ku soo hadal qabsanaa ilaahay jannadii firdawsaha ka waraabiyo qabrigiisana Allah u nuuro abwaan gaariye markaad hebel duqaysaa reer hebel danqanaya bal reer dhan oo qof u raran qof bay u raran eegay dhalinyaradii ciidanka ahaa waxay ugu dhaceen guryaha waana la soo qabtay waliba eegay ciidanka Soomaaliyeed sharaf bay leeyihiin ma ay line way isdhiiba bay yiraahdeen square baa laga qabtay isdhiiba baa la yiri way isdhiibeen waxba laguma sameyn lama line suxun loolama dhaqmin nin walba bartiisa lagu jeebeeyay deedna sheekadii mahad salaad iyo xidig waxa loo bedelay sheeko mudaharaad ah oo inta islaamo iyo ciyaal guryaha laga soo kiciyo baa oo mudaharaadna farmaajo down khayran down dawladda down iyo sheeko niic ah bay la wareegeen wayna ku fashilmeen hubkii ku aasnaa magaalada Muqdisho iyo hubkii la soo galay ciidanka qaranka Soomaaliyeed baa qabtay oo waa hubaal waa war la hubo ciidanka Soomaaliyeed waxay qabteen hub Muqdisho la soo galinayo oo la doonayo in lagu waxyeelayo shacabka reer Muqdisho laana dawladii waa loo joojin waayay dawladani bir adag bay ku noqotay shacabkeedina way raaceen sheekadii huuhaada iyo beenta iyo khiyaaliga mishinkii dawladda loo dhigayna wuu soo afjarmay waxa la yiri beeni wax la baacsado been baa u dhow wax la baacsado been baa ugu dhow lugta la soo qabtay lugta sheekadii shacabka Soomaaliyeed lagu kicinayay waxay noqotay barkumataal wax niica oo umada Soomaaliyeed oo dhan waxay artay inay mishinkan dib socod ka dambeeyo in dhagar qabayaasha iyo wakiilada xabashidu ka dambeeyaan in bukaan socodku ay buunbuuniyeen in meel walba sheeka niica lala tagay ayaa umada Soomaaliyeed aragtay haddaanu nahay midnimo qaran war meesha cilmigiina iyo aqoontiina iyo falsafadiina ku dhamaato baa anaga taayadu ka bilaabata wax badan bay nagu wareegeen sida lubaan dakarta sida diyaaradda xabashida soo luntay sida nagu wareegeen midnimo qaran baylkaanu xirnay bir baanu iska dhignay wax badan baa noo muuqda war horaan loo soo khiyaamay Soomaali horaan loo soo gaaday dhalinyarta Soomaaliyeed intii lagu danaysan karay waa lagu danaystay eegay inoo shargaray barnaamij wala qabtay hubkii guryaha ku jirayna waa la soo saaray ee la aasay nimankii dhibaatada iyo qaraxyadii asaasiyaashii mishinka wadayna gacanta lagu dhigay ciidankii dib u socod ayaga afkooda ka qaranay dib u socod inay filinkan ka dambeeyeen Soomaalidu isma indho buuxso ninka siyaasiga waa iimaan la'aan ma yal adag ba waxaan ma qasir warindhaada kaamaylka luun bulqay iimaan la'aan bay ku darsadeen iimaan la'aantii wax ku darsadeen indha adag wuxuu islaantii iimaan la'aan ku ogeed ha dad qalin ku darsatay rasuul umad qarka tursuy kaba tuura nimankan buur laga tuura mooyaan wax kale oo u soo dhawinta saa loo xidho qumiye karidka in la geeyo buuraha dhaadheer ee golis laga tuura mooyaan wax u haray ma jiraan indha adag bay wala soo fadhiya xanaka iyo TV-ga fadhiya mishinkay soo dhigeen TV-ga la soo fariistay indha adag arooskeeda ka boodaa TV-ga soo fariisteen ba oo waxay ka waramayaan Soomaalinimo iyo qarannimo ka waramayaan bukaan socodkiina lacag baa la soo siiyay shaydaan wususay in Holland jooga anagu shaydaan wususay aan u bixinaa taan midnimo qaran eegay barnaamijkeena oo shargaray
waxaan kaloo aan rabaa inaan idin sheego qoraxay website-ka qoraxay la yiraahdo sheeko niic ah intuu meelaha la soo fariistay midnimo qaran iyo annaga nacay inaan istifaacnana xaq baan u leen qaar baa halka la soo fariistay midnimo qaran shalay waxay taageerayeen qalbi dhagax sax weeye waanu taageerayna waanuna taageersanay qalbi dhagax dibtii ku dhacdayna annaga ka hadalay oo diidan laakiin yaa miskiin yaa daciif war waxaad ogaataan Soomaaliyeed on elef sida dawladda Soomaaliya bukaan socod ugu jiro ba wallahi on elefna bukaan socod badan uga buuxa oo dhagar qabi uga buuxa oo nin siyaasi iyo daalin uga buuxa on elef dad wanaagsan anagu kuwada ugu qiimaha badan baan naqaan oo nala soo xiriira oo aan wada hadalnaa oo waxa weeye gudoomiyaashooda iyo afhayeenadooda aan wada sheekaysanaa wada hadalnaa waan is ognay kuwan calamadan calalka hoos fadhiya professorada iyo jineerada sheeganayay meelaha ka soo nicliyo website-kan qoraxay waradeer qoraxay mid baan ku sheegaya hadaad adigu midnimo qaran weerar ku tahay midnimo qaran waa far qura Soomaali bayna ka kooban tahay Soomaali baan u nahay adiga fikirkaaga iyo aqligaagana ku shaqayn mayno dawladayadana ka soo horjeesan mayno mana duminayno wixii duminayna waan hor istaaginaa anaga qori qiiqanama horwadi kartay uma nihin dadkan bukaan socodka ee aqliga badan lahayn adigaaga odaygan meesha soo fadhiye na haysta baan sheegay maxaad u qaban kartaa on elef maxaad se ka tay maxaad ka tahay anaga on elef baan ugu jirta midnimo qaran on elef baan ugu jirta rag on elef baan ugu jira anaga kuwa dhalinyarada ah ee waxa weeye hadday hogaamiye waaxidada kuwa Sweden jooga ayaanu isnaqaana oo meel wada deganay oo Maxamed Bashiir iyo Cabdiwali baanu derisnahay oo on elef dibkeeda iyo waxay qabto aanu ka wada hadalnaa adigaaga odayga kala diiran meesha soo fariistay sheegay nicda la fadhiya anagu Soomaali weyn baanu u soconaa Soomaali markay hagaagto oo ay dawlad noqoto ayaa waxa weeye on elefna dawlad noqonaysa Ethiopia iska celinaysa on elefna boqolkiiba 70 waxay taageersan yihiin dawladooda waxay taageersan yihiin Soomaali oo waa Soomaali oo waxay og yihiin Soomaali maalintay wax noqoto inay on elef wax noqonayso kuwa nicda iyo bukaan socodkii reernimada halka la soo fadhiya ee sheekadan jilicsanaan meel la gaarsiisaneen website-da la soo fadhiyo dadka caay ee waxa weeye marba war tuugaatiin on elefna ma tiidin on elefna ma matashaan on elefna waxba idin ma oga on elefna samcud xuma iyo sharaf darro iyo magacooda caayaysan oo suuqa la maraysan sharaftooda doonaysan inaad dishaan waxaad ka xuntihiin jiritaanka on elef jirtaan bad ka xuntihiinba kuwiina on elefta sheeganaya ma sheegaya ee ummadda Soomaaliyeed caayaya war on elef horta Chinese maaha Korean maaha ogaado waa dad Soomaaliyeed on elefna dawladeeda way taageersanta kuwa bukaan socodka qoriga qiiqa la wareegayna wax allaaliyo waxaad samayn kartaan haba yaraatee ma jirto Soomaali maalinta wax noqoto ayaa jabhadaas wax noqonaysa waana Soomaali on elef dawladay ku jirtaa oo ururka midnimo qaran bay ku jirtaa oo meel kasta Soomaaliya bay ku jirtaa waxba sheekay yaro jirsan anaga halka loo soo farsanay qalbi dhagax hormarina 17 qalbi dhagax baa naga dhintay 17 qalbi dhagax baa maalin walba la dilaa ma ilay bal orda ka soo hadla kuwina niclayaasha oo halkan soo fariisto social media sawirka qalbi dhagax inta soo qaataan jaaliyadaha beenta qabri run hadaad sheegaysaan cabdi ilay wax ka soo sheega oo xiniina soo fuula oo darmaantiina soo kora oo runta ka sheego ilay iyo wuxuu samaynayo hadaad ragtiin kuwina meelaha sheekadan jecsan la wareegay ka aad wax tahay ilay waa daal warano guriyaha iyagiyo meeshaanu ka nimi ayaanu kuwa jooga daalimiinta baan farta ku fiiqnaa macdalla waa mid kale oo Ethiopia salkeeda joogay guriga anoo ka yimi eegay kan jooga daraan runta galmudug jooga baan runta u sheegaa oo ka Jubbaland baan runta u sheegnaa daalnahay midnimo qaran dhalinyarada kacdoonka dhalinyarada Soomaaliyeed baan dhibaatada dhalinyarada ku dhacdaanu dareemayna anagu iyo tananaga haysata ileen ummadda Soomaaliyeed waa far qura muqdisho hadday qarxin ka bilowdo dhibaato ka bilaabato wallahi boosaasa laga dareemaya oo burca laga dareemaya oo dhaqaalaha iyo nolosha naftu way isku xirantahay Soomaali waa mid eegay marka haddaanu cid qarinayno ama aanu cid taageerayno ama aanu dulmi cid ku taageerayno oo aanu cid la safarnahay warda Cabdisalaam Silaani waa adeerkii aniga Cabdiwaligaas waa adeerkayde
qoys baanu meel baanu ka soo wada jeednaa deegaanka Puntland abtirsiyahayagu waa mid kaasaan qarin lahaa oon dhihi lahaa waa weli ilaahay soo diray eegay laakiin sheeko yar oo jilicsan oo aan meel la gaarsiinayn iyo oohinta iyo xaaska iyo sawirka qalbi dhagax iyo tolaa iyo balanbalay meel la jirin adeer shacabka ku dawaqrina أنا لفوري كذا الليلي ولا ديبي أو حبش ديبي إلا صومالي مدودنا أنا لف من نقول ميسو وصاص الله وارسناي دولة ديرة قول بانو لين هاي وانو تاجر سناي افتين كاصوب حينا ولا جحوي ولا ديدين وركبة واحد رباني الواحد قبطان أنا قلنا وحنو لين هاي صوماليا هاي إسرائيل دولة دا عاصمة الصومالية ما تكتر السيجية الصومالية وانو تاجر سناي دارنا من المقرن عد قابن يعد درب وانو كلنا أردن سوشيدة كوي نابو كان صعد كي يدقر قبياش أنا لفت حراشة وحنلي wargunti diish halaga dhigo oo hal adkaysto oo nimankan magaciina iyo masabkiina sharaftiina ku ciyaaray oo onelef sharafteeda ku ciyaaraya ee ku shaqaysanaya magaca onelef ee ku shaqaysanaya magaca qalbi dhagax wallahi abaal uma hayaan oo ahsaan uma hayaan oo wanaag uma hayaan waa daalimiin ilaahay ka furtay eegay inoo shargaray barnaamij waa daalimiin ilaahay ka furtay magaciina wax u dhimaya sharaftiina diidan yihiin قبل لماذا يشبه هذا لماذا يديدين ورا وهدي وخلدين وانو نقالنا ماشي نخلع حريرنا وضيع غيره منع حيران هاد موديد مسعيلي ده إيه من ما قرن معلمين خورة وحي وذين قلب دقح بيود وارهم كهذا وانو كحمان لكن والله الدمين ما الدولة ديد أو الدولة ديد معارض كنا قرن منه شاكل هذا نعداد لو ريجش أنا ونادو داير أنا إنما وحنا مش شيء وحنا نوم يركض صوفوا الحنيها وهالكا كتقال كنت كشاقين إلي وإذنك شوغا معنا صوتو باطل إذنك قادة العكت باطل الله يقاده صومالي قلبي كنت والله اللي سوشي باطل إذنك قادة وريالا حفلده هذا تكتان دي ساي حفلوه هذا وهستان هستان وحد اللي قلبي تقح معنا إيو أنا لفبانا كدابين إلهي كفرطي والرفيانين وأنا لف لو صوت دريباتين ورانا لف حكوشي لا ورانا لفين والله دالمين بايدو كجرا او قار reernimada ku soo raacay baad ku jira oo qaar idin dhiibay baad ku jira oo qaar magaciina iyo sharaftiina wax u dhimay baad jira wala lafin oo dawladdiina iyo dalkiina iyo dadkiina iyo cid walba idin ka hor keenay oo been idin sheegaya halkana inay kala shaqeeyay war suuqyada karameel iyo 26 ka baad ba laga qaaday dadka ku nool wax alla iyo halka jooga oo dhan oo Soomaali galbeeda lacag bay bixiyaan baad xafladaha tagaan haddii kale hooyadii aabihii baa la suqaarinay iska aamuso oo haddii dhibaato ina haysato ilaahay idin yasir wadiin soo ducaynaa aan tarabaqastiya sheekadan jilicsan kala taga dadka oo iyo beentan iyo riwaayadan aad u sheegaysaan bal qaar Puntland ka yimi deegaanka Puntland Cabdiwali Gaas waxa weey ka amar qaata ba qalbi dhagax sawirkiisa soo qaateen on elf iska dhigaya oo waxa weey dawladda caayaya warbaarta nicdan iyo reernimadan ka soo bax oo sidayda banaanka soo istaag waxa anigu xasan baa la yiraahdaa Soomaali weyn ma raba adoo garowe maalin walba u dhoofaan ku ognay oo boosaaso taga oo dawladda Cabdiwali Gaas tag waa dalkaaga cidba kuma diidanay wadayaankaaga Cabdiwali Gaas u sacabatumaya oo sida ugu sinaaxaynaya ba doonaysaa oo ona lafka hadish oo doonaysaa dawladda Soomaaliyeed mucaaradid oo doonaysaa adigoo miskiin oo aqal yar ku xiran oo nolosha ka dhacay oo salaad ilaahay ku lahaaba inaad kuftid mooyaan tukan ayaa doonaysaa dawladnimo wax ka sheegtay adoo reernimo kugu jirto dhiidhisay aaminsan ba doonaysaa dawladda Soomaaliya inaad ku xumaysid iyo shacabkeeda iyo midnimo qaran ona lafnin baa la dhiibay war dawlad ka wanaagsan inama soo marisay dawladda siyaad baray inaga burburtay annaga hadda idin leh Soomaali laba nin oo ka khayr badan hore inama soo marin Soomaali maalinta Israa'iil hada gacmaha isqabsan lahayna شاك بكان صعد يا دقر قبيال اللي تدخل الصومالية وضد قبيال ضلوا يتحامل سنم ويا عابدان سنم عابد إلهي وما يدين تودي بقبيال ديك شرعين أو قبيال دي عابدان أيام الدور يا لو خلف الفرو والله كلا شقي سنة يا ظلم يا يتوجا مال بوريسا تيريتان كي الله كافتين كاي الصوب حلو الذي ديا
marka saacuna leefay midna maqaray beeshari qalbi dhagaxow sidana la yeelay hebel baa la dhibo warada dhiiba yaa daalin ximaar adaa dhiibo oo Puntland maalin walba ka dhiibo ka adwaligaas taageersan tahay maalin walba dhiiba oo galmudug tan nicda ay halkan waxa weey magaalada kala go'an jeexa ka degan baa dhiiba oo markaasad oo taageersan tahay mahad salaad bad wari u taqaana soo daahiray inaad ku salidaan bad ugu dhowdiin xidiga xun ee daalinka ah ee dadka dhiibaya ba qaar idinka kamid oo dhiidisayda iyo Jubaland-taasi ku saliya xaraan wada cunayaal baa tii markaasad doonaysaan dawladdeeda iyo dalkayga iyo dadkayga iyo ummadda Soomaaliyeed ee kala bogsootay inaad qabyaalad iyo qarax dib ugu abuurtaan war mahad salaad muxuu idin taray Soomaaliyeed waa ka maanta doonayeen Muqdisho la qarxiye intuu ciidan soo gaxaystay buu kuliyadii jaalisiyaad dhabarkeeda ciidan dhigtay oo doonaya 2017 in xabad kale Muqdisho ka bilaabato oo leeyahay waa lagu taageeraya qaar xamar degan oo Muqdisho degan ba oo hooyooyinkood joogan ba Mareykanka Ingiriiska lacag ka dhibiyo mahad salaad lacag siiya qaar ba mahad salaad lacag u diraya oo leey guuleyso haliyigi reerka u soo baxay waro halka idin dhigay Soomaaliyeed haliyiga aad ka sheekaysaan nicda ah wallahi waa ka halka idin dhigay aqli male oo garasho male oo aqoon male oo xigmad male oo diintiisa islaamka ah kuma dhaqmo nin ummad Soomaaliyeed xasuuqaya ma islaamba war iimaanka waa la jadiidiyaa iimaanka waa wax la jadiidiyo way islaamnimada afka ka sheegataan Soomaaliyeed afkum bad ka sheegataan islaamnimada war diinta islaamku waxay ku faraysaa qof walaalka inaad dilin dawlad meel taala inaad burburin ummad nidaam u dhisay inaad jabin tii Soomaaliya lagu soo burburiyay SSDF iyo SNM iyo USC baad wali daba rukuucaysan war shalaya SSDF hubka siinay war shalaya SNM hubka siinay war yaa USC hubka soo siiyay miyaanay xabashi ahayn Ethiopian miyaanay ahayn war aniga qaar ba qoraya abahay baa lagu dilay abahay baa lagu xiray war aniga abahay xabsi daayin baa lagu xukumay isagoo nin ciidan ah oo aan SSDF aqoon baa li SSDF baa hubka u qaadaa markaas xabsi daayin lagu xukumay oo ilaahay ka soo sidaayay markii dambe oo la cafiyo loo gaadana waxba shaqo ku lahayn oo la iska daayay Soomaaliyeed abahay baa xabsi daayin lagu riday waranaba abahay baa xabsi daayin baa lagu xukumay qaar baa abayaashood lagu dilay oo dawladda Soomaaliyeed disho dawladnimada Soomaalinimada raba qabyaalad baa la wadeegtaan iyo sheekad soo meel la gaarsiisay oromoy annaga waxba hanoo soo ooyina ilaahina ma taqaan waxba annaga hanoo soo ooyina oromoy ciidanka ugu badan ee Itoobiya la Tigray ku dagaalamo Oromo haddaad aragteen qaar Mareykanka jooga Minnesota iyo Yurubta jooga wax bartay oo meelaha ka hadlay teeda kale warde Oromo markaad la hadlaysaan Oromo afkiina Oromo leedihiin afkiina Oromada kula hadl maxaad Soomaali u hadlaysaan kii dhibaatada qaba ee la leeyay baa leey Soomaaliya dhibaatada joojiye afkiina ku hadlo Oromo kula hadla dad ragtiin Oromo wax af Soomaaliga noo daayay anuu meel Oromo ku hadalna hanala hadlina dadkiina la hadlo xataa war ummadda Soomaaliyeed daayay oo kuwan ciidanka u ah xabashida ee Tigrayga xabashida u ah haddaad run sheegaysan qoryahooda kala soo baxeen 45 milyan baatiin Itoobiya qabsada haddaad run sheegaysan maxaad annaga isku kaay soo nabaysaano dadkayga u leeynaysan dadkii baanu la hadalay sabciyada qurmaha ka dhacaysa in Oromaan odayaal baa la diray baa leeyahay hadda odayaal dhaqameed waxa leeyahay halaynina dadka Soomaaliyeed hadday run sheegayaan ha joojiyaan xabadda odayaal dhaqameedku Itoobiya ha u tageeno ciidanka ha kala soo baxeen haddayna awood lahayn oo aynan Itoobiya qabsan karin adeerayaal isku kaay xuqina Oromaatiin 50 milyan baatiin dadnimadina la soo baxo haddaad doontaan webiga Niil maalisa sakeelka u duro sida ugu shuba Tigrayga ma wallahi daadka qaaday daadka dhamaantood daadka qaaday ma garanaysa marka waxaan leeyahay walaalka Cabdi Tilmaan بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أكبر من السلام يا صومالي ميلا شوكتانبا وعبد السلام جنتلمان يقول عبد الفتاح بودري هل سؤال ما ويديدو أنا صومالي ما تكو عيسى أورمضو ومسلم هرتيا يدو أورمضو ومسلم مجورتي كودو وكريستن مسلم كودو ومسلم نسخن أورمضو طلبات اللي هي أورمضو هل دايو إثيوبيا إسكا علين دونتا تكرايغاي ماشا كسا جرنتيا نغا سينيا إن ما أنت أورمضو ماشا يقبسطون
inay soomaali faraha kala baxayaan waaba kuwa koobaada nagu dowdaba idhaahda dhulka soomaalida annagaa leh meel hebla annagaa leh cabudwaaq annagaa leh abdaal annagaa leh shiikh annagaa leh tan labaad soomaaliyay muxubbaa iska leedihiin iyo waxbaa iska caashaqdaanay war tagraygii maxaynu ka faa'idnay tagraygu muqdishaa laga soo abaabuli jiray melaskii xumaaye baktiyey ee baastarka ahaa ee ina dhibay ee aakhira inoo diray iyo kooxda tagrayga ee irangumeedka ee bilaa abaalka oromo isma dhaamaana maxaara isma dhaanto hanoo kala saarina annaga oromaa muslina muslinkooduna waa niic muslin saxa maba ahaba talabaad soomaaliyay halkaasaad dood nala soo fadhidaan waxaan arkayni ninkaa maantana soo dhaliilaya kasoo dhexadlayay qoraxay t v wuxuu u doodayeyba oromada halada maalin ma oromaad nagu noqonaysaan maalin waxaad nagu noqonaysaan daarood maalin kale isaaq baad nagu noqonaysaan maalin kale hawiyaad nagu noqonaysaan war soomaalinimada ma ilaashanaa soomaalinimada ma ka shaqayna anagu ma naqaano daarood baanaa noqon isaaq baanaa noqon hawiyaanaa noqon qabiilkayga guud ee sare waa soomaali raxan weyn baanaa noqon digle midhiflaanaa noqon ciis war soomaali waa soomaaliyay sida dumarka u sheekaynana oromada hala daayo waa muslimiin oromadu ma wada aha muslim majoratigoodu waaba kiristanba ciidanka etoobiya inagula dagaalantaana waa oromo kuwaa ka hadla ninkaas soomaaliga nagula soo hadlaya oromadahay muudhaahda soomaalida hala daayo kuma kala jecla tagraygii baynu ku khasaarnay muqdisha uu fadhigi jiray ninkii xumaaye iyo kooxdiisa waxaan o dhan maalin qura may odhanin waxay ka shaqeeyaan midnimada etoobiya iyo duminta soomaaliya waa tagraygii inagu aynu soo korinay ee muqdisho iyo dowladdii maxamed siyaad barre ay wax tiri jirtay sheekadaa jilicsan soomaaliyay ead midiyaa la soo fadhiisanaysaan ee aad kaloo la soo fadhiisanaysaan muslinka ilaahay maydikoo quraa muslinka soomaaliya mawakiil baa ka tin muslimnimadu waa walaalo muslinka hala daayo oo muku daayo iyagu maanagaa doonanay iyagaa basaasiina iyagaa tuuga iyagaa macaangega muslimnimada maxaa laguu qabta muslimnimada dee ilaahay baa isna muslim ka dhigay jannada ha galo ama meeshuu galaya ha galo ilaahay dee muslimnimada iyo diintiisa kuma haysan laakiin dhulkeygii bay nagu haystaan waana basaasaan dhibaatay nagu haystaan intaasaan rabaa inaan ku darsado barnaamijka walaalkay aad iyo aad u mahadsan yahay allah ka sii wad waan salaamaya dhawaansada soomaaliyay marka sheekadan yar ee niicda ah waxa weeye waa walaalaheen waa dee walaalnimada anagu turkiga waa islaam turkigaas waa islaam oo sacuudigu waa islaam macid baa sacuudigaas waa islaam ee maabaal buu noo galay imaaraadku waa islaam ee maabaal buu noo galay war annaga soomaali haddoo dhan macid baabaal noo gashay cid wali waa naxasuuqaysa hubka yagaa rida madaafiicda yagaa rida oo gantaalada yagaa rida oo oromadu waa xoogga ugu badan ee tigraygu ummadda soomaaliyeed ku laayo mid kalena aan idiin sheego soomaaliya oromo isma taqaan wallaahi baan ku yiri inay baana sheekadan nicdaa ka dambeeyo intuu u tagay nimankaas soo laayay deedna yiri ummadda soomaaliyeed deedna oromadiina soomaalidii bay ku kacday waxa laynaya liyu booliska u socdaana dawaa amxaarada waa xabashiga inay iyo ciidanku wato oromadiina dadkii soomaaliyeed bay laayay qaar maraykanka iyo meelahan Canada iyo joogo professor iska dhigo oromo ah baa soomaalidii la hadlaya war oromo wada hadlaysa maxaa loo waayay may suudharkan iyo lokaaladan oromada u qabtaan oo yiraahdo oromoy waxa ma idin sheegnaa nin kasta oo dabla iyo nin kasta oo kabtana iyo nin kasta oo ridaa iyo nin kasta oo diyaarad kiciya oo oromo ha iskaga baxo dowladda ee Tigray ha iskaga baxo mu yiraahdo oromo may dhinac timahoodu dhinac u xiirmo islaamnimada deynta islaamka waa islaam yagaana suu islaamada anana islaam baan laakiin Tigrayga muslimka ay dilaya iyo ninkan oromada ay aniga idilay waa isku kaymide ila Tigrayga iyo axmaaradu muslimiin mid kalena waan idin sheegay iga raala Soomaali kooda kristanka iyo kooda muslimka isku meel bay wax ku cunaan idinka kale oromo muslina ka gaalka way ka marqaataan imka dad isku dhacdaan ka gaalka iyo oromka ka muslimkaana isku sibay ku wada galayaan oo meel bay kaaga soo dajeesanayaan صح adiguna waxa lagu mashquuliyay kan waa reer hebel wara maxaaradaad ka sheekeynaysan Tigray ma yaqaanaan amxaar ma yaqaanaan waxana waa xogaa yar oo siyaasadeed maalinta oromadu meesha qabsatana hadiiba ay qabsadaan Ethiopia wallahi aday kugu soo noqonayaan waxa xigaysa Muqdisho iyo Beledweyne iyo Hargeysa iyo Burco iyo Boosaaso iyo Garowe kugu yimaadaan waxaan isma dhaamaan haday is dhaamaan imika oranaa Soomaalida maxaa lagu haystaa sheeko Soomaali hadalka waxaan ku soo gabagabeynaya isticlaada dawladnimadeena ilaashta Soomaali bay isku tiin waxaan haynagu mashquulinayna inay macaa wallahi maxaa
maanta nidaamka iyo dowladdeena aynu berber istaagno qabyaaladan iyo qudhunkana walaalayaal aynu faraha kala baxno 27 waan ku garaadsanay qabyaalad waan ku garaadsaday wallahi been idin sheeg maayo saaqo halkaa u booday yidhi dowlad baanu maxaanu ka keenay waanu ku gumownay maamulkii reer xumaaya hargeysa lagaga dhaw burca lagaga dhawaaqay 1991kii gunnimaanu ka qaadnay ninkay saaqiyeen naag iyo gabadhay saaqa odhan doonta sharaf baanu helay ma waxaa sharafaynu burca iyo hargeysa amxaar wuxuu doono kugu sameeyo amxaarku halku noomuu soo dhaafi jirin baktigay cuni jireen wallaahi oo soomaalida way ka badan jireen maantana hargeysa waa laga foorarsadaa ninka tagrayga ama amxaarka macaal oromada waynu ku gumownay meel walbana saasay u haystaan gunnimo markaa soomaalinimaynu wax ku noqonaynaa sharafteennu waa soomaali laakiin niicdan yar puntland somaliland jubbaland galmudug calamadan reeraha iska tuura waa calamo reero waana waxa soomaali qaar baa waxay yidhaahdaan soomaali israaci maysa iska quusta dee meelana puntlandna janno noqon mayso wallaahi inaanay noqonayn oo somaliland yari maamulkeera niicdaana wallaahi baanu janno noqonayn soomaali ama waa la wada qaadanayaa qadkaba way ka wada baxaysaa ama waynu guulaysanaynaa walcaaqibatu lilmuttaqiin minagaa cirdambeedka innagaa yeelanayna inta isjecele soomaalinimada jecel baa yeelanaysa laakiinse hargeysaa dowlad noqonaysa waa riyo waad riyoonaysaan dowlad bay noqonaysaa way go-aysaa war macawaan baatin hayla damaliyan kan iminka lagu sheego maxaa la yidhaahdaa ra-iisul wasaaraha dhisayla maryam ee u walaytada sootii cabdisalaam herri wareysanayay wuxuu ugu jawaabay open your mind maskaxdiina fura yaa xayawaan somaliland baa go-aysa waxaan dadka daanu bukaan socodkan la hadlaya dadka wanaagsan la hadli maayo caqligooda shaqaynayo wuxuu ugu jawaabay south sudan maxay faa'iiday north sudan bay ka goday waxba eritrea maxay faa'iiday halka markaa wuxuu yidhi soomaali waxaan kula talin lahaa isagaa bayna caqli dhaamo east africa way israacdaba wuxuu ku tashanayaa east africa sida brazil markaa nin xunoo maafiya oo tuuga oo ilaahay ka furtay oo xayawaana oo aan raga iyo mid xunoo qaxoontiyo halkaa lasoo fadhiya somaliland baa la yidhaahdaa abaawe somaliland tani niicdaad ka sheekeynaysa maxaad baasaboorkeeda ugu duuli weyd maxaad caafimaadka ugu aadi weyd maxaa xitaa kuwii xajka aadayay baa furan oo yaa xayawaan noqday xajkaa la aadayayo masaacada yaroo xunoo reerleeya baa laga dutaagayaaba baasaboorkii soomaaligaana waa lagu tegay ama baasaboor kaloo ummado kale ay leeyihiin baa lagu tegay war dad falan baa tiino mala waa laydin falay soomaaliyay insha allahu tacaala waxaa guulaysan doona dhallinyarada soomaaliyeed iyo inta soomaalinimada jecel nin kastoo ku fekera qabiil baa wax noqonayo gaar bay wax u baxayaan iyo adeerkaybaa madaxweyne silaaya iyo adeeraho annaguna waqooyi baan madax karayna habeenna maad jirin waad riyoonaysaa ka puntland ku fekerayona waad riyoonaysaa soomaalinimana wax ku noqonaynaa taaseen sharaf ku yeelanaynaa insha allahu tacaala waynanu guulaysan doonaa hana niyad jabina waayo iyaguba waa beenaalayaal qaar baa waxay ku odhanayaan hargeysa waxaana ka socda dee iyaguna halkaa beentaa ka soo afuufaan anaguna halkaa runta kaga hadlayna waayo been bay idiin sheegaano waa beenaalayaal beentana runtaa ka adkaan doonta adigiyo shacabka baad baan idiin salaamaya sax guddoon sare sax xanuun wadanayo meelaha wareegaya shaka nica ummadda soomaaliyeed wallaahi gacmaha aynu isqabsanno oo ummadda soomaaliyeed mid noqoto baynu wallaahi horumar ku gaarayna oo wallaahi jiritaan taasaynu ku gaarayna oo sheekadan nicda ay meelaha lala wareegayo iyo qabyaaladan iyo calankan reeruhu leeyihiin maryaha kan la ruuxaya qarshaadka lagu bixin teeda kale soomaaliyeed xaflad baan ka daawanaya sweden lagu dhigay wallaahi in stockholm hayd baan maraya calanka sweden baa saaraa meesha hool soomaali ka buuxdo canjeelo daaf laga cunay oo teedhi afar u haysayo ababayaboy markaasaa niman in naago saa lasu wada ruxayaa etoobiyaanka waxay u yaqaaniin soomaalidu heesahooda heesaha soomaaliga wax ka badiyaan etoobiyaanka markaasaa lasu wada ruxayaa oo canjeelo daaf la cunaya etoobiyaan aan u jeedo baan ku yaho xaaraana dofaar baan ka iibinaysa canjeelo dofaar canjeelo xabashida markaasaa la iibsanaya xafladdaa waxaa ku jira wiilal iyo gabdho waa soomaali war madamiirkaad laadiin weligiin miyaad aragteen fanaan soomaaliyeedoo intuu xaflad qabsaday kuwa ugu waaweyn axmed cali cigaal iyo xasan aa samatar iyo hiba nuure iyo miyaad aragtay cadar kaahin iyo xitaa hadday shawiya dhigaan fanaaniin waaweyn ee soomaaliyeed weli miyaad aragtay etoobiyaan u imanay xabashi miyaad aragteen xabashi xaflad soomaali leedahay taagan 2 iyo 3 iyo 4 taagan weligii miyaad aragteen maxaa idinka idin dhoohay oo maskaxda idinka qaaday war miyaad aragtay xabashi intuu kugu soo leexdo maqaaxi soomaaliyeed wax ka cunaya oo waxa weeye dee laxooxdeenni iyo digirteenni iyo haruurkeenni iyo gallaydii iyo cunaya iyo shuuradii miyaad aragteen maxaa idinka cuntada dadku le soomaalidu waa wada shisheeye kalkaan war xabashida maxaa cuntadooda idinku diray
maxaa cajeela daafidayda cusiyey xafladahooda maxaa u tadameen dhiig lahayn weligiin miyaad aragtaan xabashi 10 qof oo xabashiyooda socoto xaflad Soomaaliyeed ay tagays eegi noloshii nimaad aragteen maxaa damiirkeeda ka qaaday idinka nimankan caalanka u ruuxaysaan ee daalimiinta ay wakiilada xabashida ee siilaayay Cabdiwali Gaasiyo Shariif Sakiin iyo Xaaf iyo aad saa u daba ordaysan wallahi god bay idinku wada Soomaalinimana waxba idinka tari maayaan qarbayna idin dirayaan waxa doonayaan halka aftuub idinku haystaan maalin walba nin dagar qaba oo daalin idin yimaado wal noloshina aad qaxooti ku laasataan qiyaamuhu inuu sidaa idinku dhaco marka dambana leedii waayaba de leedii turtiro maalin oramayna laynaysa Tigreeg dhinac miiqale war wax kale iska daatay abud waaqiyo gobolada dhexe lacagta xabashida ka socota lacagta birta xabashida baa ka shaqeysa dhinaca iyo Kenyaatiga bir baa laga qataa Kismaayo iyo bir baa la soo gelinaya lacagtan waxa soo gelaya shilinka Kenyaatiga waa la qaybsaday TV-yada nicda ee Universal TV ee daalinka iyo kan Hon Cable inta af Soomaaliga ku hadasha anagoo inta war xitaa fanaaniinta qaar baa xanuun oo xanuunsan inta af Soomaali ku haas yuu yahay ninkan Soomaali hayna Soomaali ku hadla ummada Soomaaliyeed ayaa la yiraahdaa dadka shanta Soomaaliyeed wax la yiraahdaa ma jiraan ummad Soomaaliyeed buu war macal Jabuuti daacana kale waa Soomaali waa ummada Soomaaliyeed ka mid eegi kilinka shanaad afkiina bartay iska daayo afkiinu waxa xun lama bare Soomaali galbeedda qof baad weydiinaysa xagaad ka timi Ethiopia haye waxaad mitolmo baxardaar ku yimisaad saba uskuuriga jigjigan kay war jigjiga Ethiopia ma waa Soomaali galbeed oo goday maaha oo qabdahar maaha oo dhagax bur maaha oo wardheer maaha oo Soomaaliya dhulka liyaada afkiinu ha barto qaar galka gaarisa ka yimaad Kenya gaarisa Kenya ma waa Soomaali gaarisan ka yimaad ugu heli kara maxaa Kenya ka yimid ku geyn nimanka Jabuutiyaanka wallahi billahi talay Soomaalinimada ku dheer reer Jabuuti aad baan idin salaamay qofka haduu ka hor yimaado Soomaali baan hay ku qoray waaga dambaad gobolada iswareystaan ku qoray reer Jabuuti baan laakiin kuwan gaarisa iyo ka yimaada jigjiga Ethiopia wax Ethiopia leeyahay ma jiraan oramana waxaan leenahay war oramay haddaad tabar leediin anaga nala soo doonina oo sheekay yaro jilicsan anaga loo imanay kuwina aqoon-yahanada isku sheegay waranaw afkiina ku hadlo oo orama afkiina kula hadlo anagi baad nalaynaysan maal kitaasa inta ka gooyseen dhalinyarada Soomaaliyeed bad ciida dhigtay oo social media ku jira meedadkoodii ilayna waa shaqaysanaya social media soo dhigay wuxuu ormadu sameeyay wuxuu ormadii Soomaaliyeed isku dhacanka uu guul ka helo warda xabashi baa idin leysay ilayna waa xabashi Soomaali maaha anaga ormo idin leh warurtu jubad war Soomaaliga way yaqaan war Axmed Ishaaq ormay ilay iyo ciidankiisu Liu Boris waa Tigreeg waa xabashi Soomaali maaha anaga nabad galiya oo noo daayo ubadkay iyo dhalinyaradeeda adlaynaysan hadii kale hadeer waan soo saarnaa kaliya wallahi birtaan min saarin hatta qof dambe oo Soomaaliya dishan qof dambe oo Soomaaliya oromay hada dishan oo wax ku sameeysan wallahi Hargeysa boosasay dib u joogeen kaba cadaabtan kaba idin gelin ina taadna leyseen bad afkaygu ku hadlaysan ka waran ma aqligan u laanano kan qoriga nagu soo ridayaan oo oromo way kan qoriga nagu soo ridaya xabadana dhacay ee Tigreeg dabada ka soo wada boqolkiina ciidan ay meel wada jooga 80 ba oroma xabada nagala soo dhacaysan naasaradii aad soo dadkeeda ku leeynaysan boosaasi Hargeysa Burhaan inaad joogtaan ba doonaysan oo ku nabad gashaan hadawna kooran yar niica inta noo soo xirtaan oo meelaha Soomaali waalano seeflaboodlo oo iska qalbi jirsan dad soo gaxaystaan baadleen Soomaaliyeey oroma waa walaalihi war walaalnimada hadaa diidid anana ma rabnade maxaa anaga xaq gaarkeena ka saaran muxuu adigu adiga nalaynay la hadla kiina qoriga haya kan suuqa saaran la hadla odayaashina dhaqameedada aad dhigteen u sheeg wax taa oromay xabada ba Soomaaliya ku ridina marka was nabad gelin laakiin afarta koonad naga dirsa afkayna oo ku hadlaysan naasirad baad nagu leynaysan Addis Ababa nagu leynaysan waxa weeye halkan ciidankiina baa jooga oo dhagar qabayaasha la socdo xabad badnaan dhacaysan aduna TV-ga noo soo farsanaysa kuwina Mareykanka jooga oromayaan la isku keendirin wajana jonna war waxaas wallahi shaqayn maayaan oromay wax madii sheegna adeer ama dad iska dhiga ama nabad galiyo loo dhaafo dhulkayga iyo guriga waxba idin dilimeynaa dhaaf oo dib aan ugu soo noqon walaalnimada iyo islaamnimadana qayd ku xambaartaniyo
qayd ku xambaaraad ka tigreega axmaarka de axmaaradu muslim beeleed oo kuwa nalaynaya annaguna muslim baa nahay waa laynayna war siduu ku galay hadaan loo galay siduu ku garan oramadana ma hooyada ayaa dhashay haduu walaalnimadii islaamnimadii garan waayo de annana waa buufinayna niyow oramada taas halay haddaad run doonaysaan dadkiina afkiina kula hadla afaana oromo kula hadlo xataa Soomaalida nabadgeliy oo hadilina annagu horena idima dilina abaan haddaad leediin Soomaali aboo waan idin bixin oo alif beetaan idin siin oo afkayga wad ku hadlaysaan oo waan idin taageeri jirnay oo jabhadinaan hubsiin jirnay war abaan ma leedin waanu isnaqaan annagu Soomaali hadaan nahay kan weelkan xuquuqna boo hadhowna lagu xaara haddaad wanaag leediin oromo iyo khayr leediin ila turkiga baan فترة siyaad badla xilliga siyaad baraan فترة ka wad oo waxa ku gureyn oo hub idin siin oo magac idin siin oo afaad isku garataan alif beeta idin siin maxaad naga doonaysaan haddana dadkayga gabdhahayga baad duucaysan saaleedin Soomaali arama walaal wallahi walaal min haddaad noo dan weydid dadka noo dan weyd war oromadu tagrayga amxaarka waa kuwa Itoobiya ugu xun iyaga ugu xun ugu wallahi iyaga ugu daran بساس حتى إذا قال لي صدرا يا قرنتي سيرة ما أنا يا وردات دونتا وردات دونتا أنا تكريجي بوحنا قاد ويا حماري حتى ذوق قبستان الدنيا الذين لكن أنا يا Soomaali ولا لا واحد ورا نقول أمريكا إن النبض جلس ونود يسد وبتكي يضل وحبت الناس ودع عشان نقديش مركز ورا نقولنا ما حد نوقف بتورم ينو الله البان وكوك الله waanu ku taageernay hub baanu ku siinay jabhad baanu ka dhignay caasimada muqdisho ku noolaashid kuwiina ugu weyn maqul maxaad idinku noo qabateen maanta waqaas ubadkiini kuwaanu haynay kuway dhaleen de tigreegii xaaraanta ah ee malaskii baqtiiba saas noo soo aanu haynay oo aduna waa ka xabada nagu soo jeestay idinku tii un baad yeeshay kuwaana abayaashu hayna xabada la dhacay warada tamarreedii idinka isku taagi lahayn nabad geliya islaamnimadana adeer dhacalkina ka hayst أنا بنعيا كسر نقول بنا إلهي بلور تجي وحو شقستي Soomaali dana xalay wariyar Soomaali eegi daalin iyo oromo iyo NLF bugaan socod ku jiro iyo wakiilada xabashida iyo dhageer qabayaal iyo dawladda kuwa ku jira dhammaan meel baan ku soo wajeysan dhammaan NLFna way suwantahay laakiin aan walaa wax badan baan ogeey NLF inta xalaasha wala yaqaan NLF xalaasha qaar baa bari furo NLF oo حاجل داعي وماشي أنا لف حكسو حدا بقار بابرفرة كم بانو نغانا أنا لفت اللقوية وذاك شقية أو بقى يوق وذاك شقية أو ما أنا بو عرّا إني إلي وعرّا هذا والله أنا لفت سوهية والله خالد بانقلي دو شبهات بقى هن العافي ده شبهات أنا شبهات سكا دقنو إحنا ما تشو لكن إلى آخر ودنا حنيها الوضع يستام بقى أنا لف قلبي داعي أنا والله دولة إذا وتاجرين والصومالي يوم من نقطة أنا لا فايدة كنا واحد وين نقطة ما أنت الصومالي سرعوا ما أنت سبت تقول سنس وتقول يشرف ليس سي شبهاتي هراء الصومالي قلبي أي شرف ويشوا دون كلام بس لا أكتب مريجتي إيه استكاي يقوم تقديش كذي بكان صعد كي يحنون أنا وبسات كان قرح عين علي ورا يرنا يشكني عن الأصوات يو الله أنا لف بريفوري وبسات كان قرح عين الله لي الله بريفوري اليوم oo marba oday yaro dhaka diirano daalina soo fariisinaya meesho Soomaalida kala dilayo bukaan socda dhamaantood baa lagu shaqeystaa war website-kana xitaa wuxuu yahay website-ka qorxay baaba daalin ah oo xabashida u shaqeeya warona la fayso soo hufa oo daalimiinta iska hufa oo kuwaanu garayna annaga ka qabanayna Puntland iyo waxa niicdan Soomaaliland sheegtaa annaga garayna kuwa sheegayni kuwina Soomaali galbeed kala yimaada ya eegale هذا إذا كلا قرن منه سوق كلا جورو أنا لفي إسكبوا فيه بكان صعد يضطك طالميتها يجي خير بدير الثانية ملك صدوني شوفتان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.